waxay inay ogaadaan halka aynu marinayno wax mashruuca JBLG ilaa intuu bilowday horumarintiisu halka ay maraso iyo sida Soomaaliland uga faa'iideysatay iyagu markay arinta ka hadleen wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna wuxuu ka waramay Soomaaliland heerarkii horumarkii ay soo samaysay mashruucan iyo waxtarkiisa sida dawladaha hoose uga faa'iideen iyo sida dawladda Soomaaliland u wado dadaalka dhinaca horumarinta haday tahay nabadgelyada haday tahay horumarinta degmooyinka haday tahay dadaalka ay Soomaaliland ugu jirto wixii iyada soo gala inay ku xalliso dhibaatooyinka dalka qoladan wafdiga socotayna waxay iyaguna muujiyeen inay la sameeyaan dadaal wasiirku wuxuu muujiyay in uu jeclaan lahaa hadda wixii ka dambeeya horumarka macaawinooyinka ay bixinayaan in lagu horumariyo dhinaca deegaamada aan ahayn magaalooyinka sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay aadan xasan mataan oo kamid ah mas'uuliyiinta UNCDF oo ka waramay ujeedada wafdigana u yimaadeen dalka Soomaaliland isagoo tilmaamay in ay sii wada doonaan mashaariicda ay gacanta ka geystaan waxaana yiri waa markii koowaad uu yimaado Soomaaliland waa ninka ugu sareeya director-ka ka hay'adda UNCDF oo kamid ah joint programka JBLG da kamid ah marka maanta laba arrimood buu yimiday koow in uu la Soomaaliland eego waa UNCDF muddada ka shaqeynaysay LDF kuna ka shaqeynayay inuu soo adaydeeyo inuu arko